بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحابي كوسو دوادا درجة سو كنت waxaan ku jirnaa barnaamijkeena caanka ahay ee soo koobida buugaagta sida awgeed soo koobida buugaagta xoolaha waxay rabnaa inaan yara ballaarino marka maadaama aan rabno inaan ballaarino waxaan ku qasbannahay in wax mar kasto xiriir la leh aan soo kordhino ama buug inaan qaybo u qaybino barnaamijkan waxaan ku talagalnay buuggeena caanka ahay ee Why Nations Fail ama maxay quruumuhu u feelgaroobaan ama quruumuhu maxay u guuldareystaan ama dowladuhu maxay u guuldareystaan barnaamijkan wuxuu xiriir la leeyahay buuggaas Why Nations Fail waan xalqadii labaad ee ku soo qaadan doono buuggaas wuxuu uga duwan yahay kaliya barnaamijkan buugga Why Nations Fail sida aan hore u soo sheegaba saddex arrimood ayuu xoogga saaraa waxayna ku qoran tahay subtitle-ka buugga Why Nations Fail wuxuu ka hadlaa The origin of power, prosperity and poverty uu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa awoodda barwaaqada iyo wuxuu ka hadlaa faqriga waxa la yiraahdo ama saboolnimada waxa la yiraahdo ayuu ka hadlaa marka mar ayaan ku fikiray inaan buugga u soo qaato cutub laakiin intii taas aanan gaarin ama waa ka fikiraya weli arrinkaas si toos ah go'aan uga qaadan laakiin xalqadan waxaan ugu talagalay inaan ka hadalno xoogga saarno the origin of power prosperity and poverty waxaan ka hadlaynaa oo xoog aan ku saarayna xalqadan awoodda barwaaqada iyo saboolnimada xoog ku saarayna waxaa kale oo aan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa cutub aan u arko inuu muhiim yahay oo buuggaas ku jiro cutubkaas waa cutubka 13aad ee buugga وعتبك سدح يتمناد أبوك بوجا وواي نيشنز فيل عتبك محله يقعنا مجا عيسى واي نيشنز فيل توداي محي قرومه أقول دريستان ما انتظر مركو عتبك كاس قيمتك كذلك برنامج كانوا بسوا قاعدتنا برنامج كانوا حاسوا دي أنا وقتي السوكو صبتوا أصحاب بدن أيا كعذر دارتي أما كسوعت برنامج كذا هراء وقتي ولا ولا مركو حاسوا دينا سيكستو صورت قالوا يرايكرنا هذه صورت قالنا marka toos ayaan u geli doonaa xalqadeena maanta insha Allah marka intaan u guda gelin sida hore u soo sheegaba cutubka 13aad ee buugga waxa ka horeeyo oo aynu ku hadli doono xoog ku saari doona ama falanqeyn doonaa maanta the origin of power prosperity and poverty ayaan falanqeyn doonaa marka asxaabay waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad faafisaan share gareysaan like gareysaan sidoo kalena asxaabta aan ku jirin ama aanan subscribe gareyn dalajir show waxaan ka codsanayaa in ay rukuntaan channelka annaga waxaan ku dadaali doonaa inaan wax faa'iido leh aynu soo gudbiyo insha Allah aynu dhaadhacna buuggeena ama xalqadeena labaad ee Why Nations Fail aynu galno buugga Why Nations Fail oo ay qoreen Darren Acemoglu iyo James Alan Robinson ninka loo yaqaan wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa sababaha ay quruumaha waxaa loo yaqaanaa sidaan ognahaba nation ayaa loo yaqaanaa marka hadda ma raba inaan ka hadlo laakiin waxa la yiraahdaa government iyo nation laba shay ayay kala yihiin marka nation qaranka la yiraahdaa ama shicibka ayaa loo yaqaanaa nation waxaa loo yaqaanaa ummadda iyo dalka ayaa nation loo yaqaanaa marka quruumo ayaynu soo qaadan doonaa in badan oo ku soo qaadan doonaa marka wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa sababaha ay quruumaha qaar u barwaaqo iyo baraare sababta ay u haystaan quruumaha qaar halka kuwa kalena ay saboolnimo iyo faqri balaaran ku jiraan ama waxaa jiro kuwan kale saboolnimo jirto ama farqi balaaran jiro oo ummadii waddanka ku nooleed ayaa kala duwanba maxaa keena marka arrinkaas buuggan way xooga saaraya xiriirka ka dhaxeeyo nidaamyada siyaasadeed iyo dhaqaale iyo sida hab dhismeedka ama qaab dhismeedka awoodda uu u saameeyo horumarka ama dib u dhaca bulshooyinka sida uu saameynta ugu leeyahay intaas inaan fahanaan u maleynaya buuggan wuxuu xooga saarayaa sidaan hore u soo sheegnay xiriirka ka dhaxeeyo nidaamyada siyaasadeed iyo dhaqaale horta xiriir ka dhaxeeyo iyo sida qaab dhismeedka ama hab dhismeedka awoodda uu u saameeyo horumarka ama dib u dhaca bulshooyinka inay bulshada horumarto iyo inay dib dhac oo ku dhaco qaab dhismeedka awoodda dowladnimada ama nidaamku sida uu saameynta ugu leeyahay
saddex eray oo muhiim ah oo si joogto ah ugu soo noqnoqonaya buug waa kow awoodda, laba barwaaqo, saddex saboolnimo. saddexdan eray buug way ku soo laalaabanayaan kuwaas oo ah furayaasha lagu sharaxayo ama lagu sharaxo guulaha iyo guuldarrooyinka quruumaha kala duwan, qaramada ama ummadaha ama dowladaha sida doonta u fahmi. guulaha iyo guuldarrada waxa u keeno waa saddexdaas qodob, marba sida xaaladdu ay noqoto. marka qaybtan ballaaran waxaan diiradda ku saaraynaa saddexdan arrimood annagoo adeegsanayno tusaalooyin toos ah oo aan ka soo xigannay buugga loo yaqaan Why Nations Fail, maxay quruumuhu u fashilmaan ama u guuldarraystaan. saddexdaas qodob aan marka ka hadlaynaa. kow, qodobka waa sidaan soo sheegnay waa the origin of power, awoodaan ka hadlaynaa marka. qorayaasha buuggani waxay ku doodayaan in awoodda siyaasadeed iyo dhaqaale ay tahay udubdhaxaadka horumarka ama guuldarrada dalalka. siyaasadda iyo dhaqaalaha, awoodda siyaasadeed ama nidaamka siyaasadeed iyo nidaamka dhaqaale waa labadaas arrimood waxay udubdhaxaad u yihiin la yidhi horumar, guulo ama guuldarrin waxay u yihiin udubdhaxaad u yihiin. nidaamyada awoodda ee loo dhiso ama lagu dhiso qaab cadaalad ah loo dhiso. buug hore waxaan kusoo sheegay nidaamkan in loo yaqaan inclusive institutions, nidaamyada cadaaladeed ama nidaamyada maxaa la yidhaahdaa awood qaybsiga, nidaamyada awoodda shicibka ayaa waxaa loo yaqaan inclusive institutions. waxa ay bulshada siiyaan nidaamka noocaana ama nidaamka cadaalad ahaan loo dhiso wuxuu bulshada siiyaa kow, xorriyad ayuu siiyaa. xorriyad maxaa la yidhaha marka? qofku inay codkeeda xor u tahay ee qof dooran karto. kow, in ayada la dooran karo. sidoo kale in ay wax dhaliili karto oo wixii qalada iyo wixii sax ay sheegi karto. sidoo kale waxyaabahaas inay ganacsi samaysan karto, in horumarka shaqsiga inay iyadu ka fikiri karto, xor ay u tahay. marka xorriyaddu waxyaaba badan ay noqotaa, laakiin xorriyad ayuu nidaamkan bixiyaa. kow, hal abuurnimo, dadku inay wax sameeyaan, ay wax fikiraan, wax soo hindisaan, wax qabsadaan ayuu ogol yahay, kama hor imaanayo. iyo ka qaybgalka, qofka in xukunka inay qayb ka noqoto loo ogol yahay, dariiqooyin ay marto oo la yaqaana ay jiraan. dhinaca kale marka nidaamyada awoodda urursan ama nidaamyada awoodda qolo gaar ay haysto, nidaamyada ku dhisan waxaa loo yaqaanaa extractive institutions loo yaqaan. waxa ay koox yar siiyaan nidaamka noocaan awoodda, taasoo ka dhalato awoodda noocaasa kala sarreyna ka dhalato iyo horumar la-aana ka dhalato. in ummadda ay kala fadilin tahay, ay ummaddii qaarna ay yihiin qolada loo yaqaano royal family-ga ama royal levelka inay yihiin, qolana ay yihiin maxaa la yidhaahdaa eberta zeroda qola aan tirsanayn. marka dabaqad sare iyo dabaqad hoose bisaa jirta nidaamka noocaana. wax dabaqad dhexe iyo ma jiraan. dabaqad dhexe nidaamkan ma leh. wuxuu leeyahay xukun qolada xukunto iyo qolada la xukumo bis. tusaalaan soo qaadanaynaa marka koonfurta kuuriya iyo waqooyiga kuuriya tusaale fiican u ah. labadaas waddan waxa ay ku yaalin jasiirad isku mid ah oo leh taariikh iyo dhaqan wadaag. waa dadkaas waa isku asal, waa isku taariikh, waa isku dhaqan, asliyana kuuriyana la isku yiraahdo. balse waxa ay ku kala baxeen koonfurta kuuriya iyo waqooyiga kuuriya laba waddan ay u kala baxeen oo aad u kala duwan. koonfurta kuuriya waxa ay ku guuleysatay horumar dhaqaale oo xoogan sababtoo ah nidaamkooda awood qaybsiga ayaa dhiirigeliyay hal abuurnimada iyo xorriyadda ganacsiga u dhiirigeliya nidaamka awood qaybsiga. marka aan ka hadlo awood qaybsiga, nidaamka awood qaybsiga la yiraahdo waa nidaam ku dhisan in ummaddu ay lahaato go'aanka cidda hogaaminaysa. macnaha ummaddu inay codayso, wax doorato, cid kasto ay xor u ahaato ama awood u lahaato in la dooro karo, inay wax dooro karto. nidaamka noocaas dimuqraadi waxa ay u bixiyeen. nidaamka noocaan marka wuxuu dhiirigeliyaa
waxa loo yaqaano hal abuurnimada iyo xorriyadda ganacsiga. qofku waa ganacsan kartaa sidii doontay u ganacsan kartaa wixii aan sharci darro ahayn. waqooyiga Kuuriya soo harmar nidaamkooda waa kaliitalis waa awooddan waxay ku urursan tahay hal qoysay ku urursan tahay hal qolo ayaa haysato. waxa ay ummaddan ku sii jirtaa saboolnimo iyo kaliitalisnimo gaamurto ku jirtaa. waqooyiga Kuuriya waa naqaanaa asxaabe. waqooyiga Kuuriya waxaa qola la yiraahdo reer ma la yiraahdo maqan Kim Jong Un ayaa taliyo. Kim Jong Nam maruu joogo jiriyay reer naankaas ama qoladaas ayaa iska haysta xukunka. waa family ayaa haysta xukunka. sida taariikhda inta xasuustana aniga reerkan ayaa xukunka haysta. xitaa taariikhda milaadiga annaga waxaan isticmaalaa 2005 ayaa isticmaalaa taariikhda milaadiga. wadamada qaar waa dhici karta inay taariikhda hijriga isticmaalaan, laakiin ayagu waxay isticmaalaan reer Kuuriya taariikhda uu dhashay aasaasay waddankaas oo ah ninka hadda jooga awowgiis koowaad miyaa garanmaa mise kii labaad waa laga yaabaa. marka waxaan u maleeyaa taariikhdoodu 100 sano ma dhan taariikh yaray isticmaalaan. marka taas maxaa kalifay? waxaa kalifay reerkan sidii rabaan waddankan ka yeesha, sida ay rabaan ayay waddanka yeesha. marka sidaasaa keenaysa arrinkaas. saamaynta awoodda weli waxaan ku jirnaa qodobka awooddan ku jirnaa. awoodda lagu qeexayo qaab dhismeedka siyaasaddu waxa ay toos u saamaysaa awoodda lagu qeexayo ama lagu qeexo qaab dhismeedka ama hab dhismeedka siyaasaddu waxa ay toos u saamaysaa barwaaqada bulshada. qaabkay awoodda ama qaab dhismeedka siyaasadda waddanka u yaalo waxay keeni kartaa ama saamaysaa barwaaqada bulshada. haddii awoodda loo isticmaalo si cadaalad ah bulshada oo dhan way ka faa'iideysataa. awoodda haddii qaab cadaalada loo sameeyo bulshada dhan way ka faa'iideysataa. haddii kalese oo cadaalad darro ay timaado waxaa ka dhalato kala qaybsanaan iyo guuldarro bulsho ka dhalato. kala qaybsanaan dadkii inay noqdaan kooxo ama dad xukunka haysto kuwa aan haysanin kuwa xaaladdu iska liidato kuwa mucaarada waxa noocaasay noqdaan. sidoo kale waxaa ka dhalato guuldarro bulsho. ugu dambaystan waxaa dhici karto waddankaas inuu burburo ama qalalaasa iyo balaayo ka dhacdo. waa sida annagu aan ahayn sidaad ogtihiinba 1969 waddankeena waxaa qabsaday milatariga xukunka qabsaday. laakiin milatariga xukunka waxay ka dhigeen wax gacan ku aruursan oo qola iska haysta. dabadeed waa ummaddii sidii doona laga yeelay ama haddaan badday meel dhexdhexaada ka dhigo xukunka ummadaha qaara laga yaabaa inay siyaysan ugu qanacsaneen ama xooga cadaalad darrana iska jirto. ugu dambaysana 20 sano kadib waddanka waa burburay oo cadaalad darrada ayaa burburaysa waddanka micnaha. marka ma raba inaan uga faa'iideysto oo aan maadaama asxaabtayda daawanayso janalkan qaarkood ay aaminsan yihiin inay fiicneed waa fiicneed oo waddanka si fiican ay samaysay. waddanka waa dhistay maxaa la yidhahdaa cadowga qaar ay naga celisay. haddana ugu dambaysti maadaama wax aysan ahayn wax shicibku soo doorto shicibka xaggiis ka yimiday ugu dambaysti burburan ugu dhacay. marka burburkan waxaa keenayo cadaalad darra keenayso. xoogaha kala qaybsanaantaasna waa la kala qaybsamaya. marka maadaama aan dhinac laysula jeedin ugu dambaysti sidii wixii loo kala jeedinayo burburo dhacay. qodobka labaad usoo dhaadhacayna waa barwaaqad prosperity waxa loo yaqaan. barwaaqad sidoo buugu tilmaamayo waxay ka dhalataa nidaamyada awood qaybsiga nidaamyada shicibka xaggiisa ka yimaaday ka dhalataa ee fursadda siinaya muwaadiniinta hal abuurka ganacsiga xorta ah. sidoo kale hal abuurka ama ummadda in la jiheeyo ay wax soo saarto ummaddu wax qabsato wax ay ku mashquulsanto siyaasadda waa inay jiraan oo qofku wax ka soo galaya. tusaale kale qofku hadday haysto ganacsi fiican dhaqaale fiican soo galayo guri fiican haysto nolol fiican haysto xorriyad hadal ay haysato oo qofka hadday hadasho aan la dhihin maxaa u tiri waxaa laga yaabaa inaysan danba ka yeelan siyaasadda. dad badanaa siyaasadda ka mashquulma oo aan badanka kala haalahayn. marka hal abuurka waa in la ogol yahay oo qofku waxa ay keensato lagu dhiirigeliyaa. haddii aan wax la sii karin waa in faraha laga qaado qofkaanu ay hor u socotaa. ganacsi xor ahna waana jiro oo qofku waxa ay awoodo ama ay samayn karto ay ganacsi kartaa. laakiin haddii dowladda ganacsiyada ay xirto
oo la yiraahdaa sokorta lagama ganacsan karo sokorta dowladda soo dejinayso sidii waddankeena marka jiri jirtay waxaas ma samayn karto qofku intaas waa kaa xiran tahay macnaha qofku waxay noqonaysaa in la cajuub iyo ilaalinta xuquuqda hantida qofka xaqa ay leedahay ama hantideeda waa in dowladdu ay ilaalisaa oo dheedheen aan lagu qaadan karin ayaa kamid ah tiirarka keeno horumarka dhaqaale oo waaro ayuu keenay barwaaqa marka barwaaqa maadaama laga hadlayo waxaa qasaba in dhaqaalaha markasto bulshadu wax inay soo galaan income fiican heli karto marka waxaan ka hadlaynay prosperity aan ka hadlaynay tusaalooyin maxaa ah maraykanka tusaale oo ah buug wuxuu tusaale u soo qaata maraykanka oo nidaamyada awood qaybsiga ee siyaasadeed iyo dhaqaale ay abuureen jawi ku habboon hal abuurka iyo ganacsiga sameeyay sababtoo qofku hal abuuray la timid hal abuurka horta waa la xaq dhowraya waxaa laga yaabaa dhiirigelin inay heshaa laga yaabaa in la ilaaliyo copyright-ka ama xuquuqda hal abuurka in la ilaaliyaa laga yaabaa fursado badan ay heli kartaa haddaysan marka dhicin in fursadaas la helo kale ama awood aysan dowladdu u lahayn waa in la nabadgeliyaa oo aan lagu xadgudbin oo xuquuqdiisa iyo hantidiisa qofka la dhowraa sidoo kale maxay dowladda maraykanka jawgan ay samaysay muxuu kalif ama u keenay ganacsi oo kale sidoo kale qof walba wuxuu fursad u helaya inuu ganacsi sameeyo ayuu fursad u helaya taasoo keento horumar dhaqaale oo ballaaran ayay keentaa qodobkan kulli gadaal nooga imaan doona laakiin wadamada oo awoodda ay ku aruursantaha gacnaha waxaa dhacda mararka qaar ganacsato waddanka joogto ama hanti haysato in ay dowladda iskala saaxiibto dabadeedna wax kasta iyadu haysto laga yaabo marka wadamada horumaran waxay sameeyeen dadka ganacsatada hantida waaweyn haysto si aysan ummadda ugu tumanin canshuuro waaweyn laga qaado canshuurta inta lagu leeyahay laga qaada marka qofku ganacsadaha weyn ah oo hantida haysta asaaba si uunbuu isaga dhiban yahaaba sababtoo ah xumaan ma haysto dowladdu ma dulminaysa laakiin hantida badan oo laga qaada canshuur ahaanta looga qaadayo ayaa laga yaabaa inuu dhibsanaa mararka qaar marka saaxiib dhow gaar ah dowladda lama naga kariyo markasta hagaag wadamada afrika qaarkood qorayaashu waxay tilmaameen wadamada qaarkood oo ay ku jiraan wadamada qaar ay ku jiraan Congo waddanka Congo la yiraahdo iyo sidoo kale waddanka la Zimbabwe kuwaas oo nidaamyada awood urursiga ama awoodda qolada iska haysato ay horseedeen burbur dhaqaale koox yar ayaa ku tagrifashay wadamadan Zimbabwe iyo Congo waxay ku tagrifayeen kheyraadkii iyo hantida dalka kooxaha iskaga tamashliiso taasoo keentay farqi ummadda inay kala qaybsanaatay keentay ama ummadda inay kala hooseyso iyo dib u dhac baahsan ay keentay welina dalalkaasi jidkii way ku joogaan oo kama aysan waantowin macnaa waa jidkay sii hayaanba Congo iyo Zimbabwe waa ogtihiin haddii aan meesha wax yar ka sheego Zimbabwe waxaad ogtihiin lacagaha adduunka ugu qiimaha yar ayay leedahay Zimbabwe waxaan u malayahaa lacagaheeda waxaa ka mid ah 500,000 oo waxaa jirto warqad ah 500,000 markastoo aragto cadadka lacagta waddanka inay zaa'id noqotaan sicir barar iyo qiimo dhac lacageeda jiro annaga oo wadamada adduunka ugu liita xatisan xagga lacagta 1,000 shilin 1,000 aa u badan lacagteen warqad 1,000 aa u badan wadamada nagu hareersan sidaas oo kale waa 1,000 wax ka sareeya ma jiraan badana laakiin ayadu 500,000 arkay malaha 500,000 maxaa ku xig 1 milyan ku xig 1 milyan malaha warqada waa qabtaasan qiyaasa habka barwaaqada marka barwaaqa sidee lagu gaaraa barwaaqadu waxay u baahan tahay nidaamyo dhiirigeli u baahan tahay ummaddu inay wax yeelato ama hanti la lahaado ama barwaaqa jirto nolol fiican ay jirto waxay u baahan tahay xorriyad dhaqaale u baahan tahay xuquuqda hantida u baahan tahay hantida qofka in la dhowray u baahan tahay la ilaaliyo aan lagu xadgudbi karin shuruuc iyo nidaam adagna oo jiro sidoo kale waxay u baahan tahay cadaalad siyaasadeed siyaasadda in loo siman yahay oo xuquuq nidaam siyaasadeed oo la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbi karin oo jiro laakiin haddii qofu ay iska riyootay siday doonto iska yidhaahdo siyaasadda marka laga hadlayo oo nin oo iska haysta meesha ma jirayso cadaalad siyaasadeed maamul hufan oo waara sidoo kale maamulka ama nidaamkuna uu ahaado mid hufan halkaas waxaan u gudbaynaa prosperity ama barwaaqan u gudbayna waxaan usoo dhaadhinaynaa saboolnimo iyo farqi waxa loo yaqaan saboolnimo iyo sinaan la'aan micnaha haddaad doonto dheh waa poverty
an inequality waa poverty iyo inequality waa macnaha fakri iyo sinaan la'aan macnaha farqiyaa jira macnaha farqiyaa jira sinaan la'aanaa jirta farqiga iyo saboolnimadu waxa ay si qoto dheer ugu xiran yihiin habka awood qaybsiga macnaha habka awoodda loo qaybiyay ku xiran yihiin saboolnimadu ma ahan arrin dabiici ah ama saameyn xagga juqraafiga ah oo kaliya macnaha saameyn xagga juqraafiga ku timaad ma aha sidoo kale arrin dabiicina ma aha sida uu buuga caddeeyey taa beddelkeeda saboolnimadu waxaa inta badan ka dhalata nidaamyada xadidan nidaamyada loo yaqaan extractive institutionska ka timaada ee siyaasadeed iyo dhaqaale ka timaada oo abuuro kala qaybsanaanay abuuraan nidaamyada tusaale Botswana iyo Sierra Leone usoo qaata Botswana iyo Sierra Leone Afrika ku wadayaan buug wuxuu tusaale usoo qaatay Botswana oo ah waddan Afrika ku yaal oo nidaamka siyaasadeed oo xoogan ku gaaray nidaam siyaasadeed oo xoogan wuxuu ku gaaray horumar dhaqaale halka Sierra Leone ay ku guul daraystay sababo la xiriiro nidaamka xadidan oo awood urursiga ku dhisan nidaamka qodobada iska haysta awoodda oo madaxweynayaasha 40 sano 50 sano 30 sano iska haysta awoodda ayaga mooyaane cid kale aysan hadli karin madaxweyne asaa ah ra'iisul wasaare asaa ah wasiirka gaashaaniga asaa ah taliyaha ciidanka asaa ah wasiirka arrimaha dibadda asaa ah wasiirka maaliyadda asaa ah wax kasta asaa ah hadduusan sidaas ayn xataa madaxweyne asaa ah wiilkiisa ra'iisul wasaare islaantiisa wasiirka gaashaaniga ah ilma adeerkiisa waxay wasiirka arrimaha dibadda macnaha asaa sidoo doono unba waddanku u yahay waddanku waa dabakaayo asiga leeyahay wuxuu kaloo soo qaatay isku bardhig uu samaynayo marka Botswana iyo Sierra Leone Botswana waddan Afrikaan horumar fiican u gaaray wadamada Afrika ee horumarka ee loo yaqaan development countries ku jira ama wadamada horumarka ku socdo ku jira Sierra Leone wuxuu ku jira wadamada loo yaqaano wadamada de waxa loo yaqaan talo Sierra Leone kale waxa loo yaqaanaa wadamada saddexaad macnaha ama wadamada malaha nolosha ka dhacay waxaan dhahnaba garanayna Mexico iyo Mareykanka tusaalaha wada wuxuu ku soo qaatay Mexico iyo Mareykanka Mexico waa garanayna Mareykanka iyo Mexico xuduud ay leeyihiin waxaa loo yaqaanaa Ameerikada waqooyiga loo yaqaanaa waa Mexico Mareykanka Canada iyo jasiirado kulli waxaa u maleeyaa Cuba iyo Bahamas iyo ka tirsan jasiiradaas Cuba waa waddan laakiin waddan jasiirado laakiin labadan waddan xuduud fiican ay leeyihiin taariikh dheer ana ka dhaxayso hadda barnaamijka uma hadli karna laakiin taariikh dheer ka dhaxayso saboolnimada ka jirta Mexico waxaa qayb weyn ka ah nidaamyo xadidan oo awoodda ka ilaaliya bulshada inteeda badan nidaamka Mexico ka jira waa nidaam xadidan Mareykanka marka dhanka loo eego wuxuu barwaaqo ku gaaray nidaamka awood qaybsiga oo ka faa'iideysto nidaamka awood qaybsiga oo Mareykanku gaaray oo ka faa'iideeya ama uga faa'iideeya awoodda iyo kartida muwaadiniinta uga faa'iideeya meesha si fiican u fahanna Soomaaliya awoodda wuxuu uga faa'iideeyaa nidaamka Mareykanka jiro iyo kartida muwaadiniinta uga faa'iideeya waxbarashada dhaqaalaha ama shaqada ganacsiga wax kasta wuxuu uga faa'iideeyaa muwaadiniinta marka muwaadiniinta markasta number 1 ah isku xirka farqi iyo saboolnimo isku xirka farqi dhaqaale wuxuu keenaa farqiga dhaqaale wuxuu keenaa intaan uu keenaa ummaddu inay kala hooseyso ama ay farqi dhaqaale oo jiro cadaalad ma jirto macna bulsho aan sinaan ka jirin oo keenaa oo cadaalad darradu biyo dhigato keenaa kow wuxuu kaloo keenaa fursado xadidan oo saboolnimadu ay sii kordho saboolnimada sii kordhayso markasta marba markasii dambayso macnaha fursadihi xadidan ee wuxuu keenaa horumar la'aan joogta oo keeno iyo qaalaasa aan dhammaan lahayn waddankaas ma dego markasto sidaas la iska daba meeraysta waa burbura waa wax yar la soo cabcabaa haddana waa burbura sababtoo cadaalad ma jirto sida saboolnimada waxaa looga bixi karaa oo kaliya uu leeyahay in la abuuro nidaam awood qaybsi ama nidaam bulshada ka yimaado oo hubiyo in fursadaha loo siman yahay fursado loo siman yahay in la siiyo dhammaan bulshada macna fursada in loo sinaado unbaa qeyr ku jira weli waxaan ku jirnaa qaybta koobaad
برنامج كنا وجدنا مقال كنا قيمتي سكوت مقال كسر هروس وشاقي سدح رمض أيام كهل دونا دبدينا حنصل على عدهنا جبت سدح يتمنا أبوك أوصل على عدهنا جبت سدح يتمنا هروس وشاقي عوان كيس مجا عيسى لكن هذا وحن كهلنا حلو يقان باوا poverty يا prosperity كهلنا حريرك أودا برواقو يصبون حريرك كدحيو أينو ربنا أنا موضوعا أما قيبتا وهذا هو جواي نيشنز فيه وهو عندي إن سدحنا أرمود سقط طلع سو حرين أنا سدحنا أرمود ويسكو حرين سيدين سو حرين أودا سيد الله قيبي أودا وحا إيجو آمسا إنه يبلشدو برواقع جارتو ينكلم سيد أود قيبسي أما النظام كسياسي الله بسو أيا وحيجو آمسا أما قريضة ديسا عنديسا ومضى برواقع إنه جارتو إنه ينكلم إنه صوت هذا هو برواقع قاب اسميتك أما هب اسميتك السياسية إيه حوجا وحو هرسيدا برواقع حلك النظام كحديدا أما نظامك محالي هذا كي تلسكا أما النظام كضعيف كصدق طلع أي صوال لما أبوران معنا النظام هذا قال معنا وحوجين سوى يكور يقول لكن نتيجة كلا بتحين قطع صوال لما هجان مركز صوال لما هي فرق مركز صوال لما وح أي كلا بتاع نظام هذا أو قيبسي حديدا أو نظام هالكوح أما النظام غير هيستان isku soo koob arrinkan waxa uu keenaa korar ku yimaado farqiga bulshada dhexdeeda farqi hore uga hadalnay bulshada inay si cadaalad lahayn macnaha inay kala sarreyso ama kala qaybsanta sida doonta marka bulshadu qaar waa barwaaqaysan yihiin hantida dhan wadanka ay haysto qaarna gaajo u baaba'ay marka farqiga meesha ka jiro marka waxa loo yaqaan nidaamka noocaana ayaa waxa loo yaqaan saboolnimo ama farqi ayaa loo yaqaan tusaale guud ayaan ka bixinaynaa intaan xiriirka awoodda barwaaqada iyo saboolnimada waa kaana tusaale guud waqooyiga Kooriya iyo koonfurta Kooriya oo nagu soo celinay aad uga hadla waa tusaale soft ah macna cid kasta fahmi karto waa tusaale ugu weyn ee xiriirka ka dhaxeeya awoodda barwaaqada iyo saboolnimada waa tusaale isku xiraya saddex arrimood awoodda barwaaqada iyo saboolnimada marka laga hadlo dadka wax baaro oo yaqaano nidaamka iyo siyaasadda lagu shaqeeyo horey ka soo dhiftaan waqooyiga Kooriya iyo koonfurta Kooriya waqooyiga Kooriya waxa ay ku hoos jirtaan nidaam kaliya talis ah oo reer isaga tamashleeyaan taasoo keenta saboolnimo iyo farqi ballaaran ay keentaan tan waxaan ku cadeyn karnaa madaxweynaha wadankaas oo aragteen oo malaha waa 300 kiilo sidaan qiyaasay waxa ka muuqato baraare iyo barwaaqa ka muuqato marka u fiiriso ummadda kale oo wadanka u dhashayna waa dad gaajo u dhimanaya intaas aad noogu filan tusaale malaha koonfurta Kooriya oo leh nidaam awoodda dadweynaha nidaam ay dadku leeyihiin ayaa ka jira koonfurta Kooriya waxa ay ku guuleystay barwaaqo dhaqaale iyo horumar bulsho ku guuleystay bulshaduna horumar fiican ay gaartay barwaaqo dhaqaale oo jirta wadanku waa iska wada barwaaqaysan oo shirkadaha adduunku waaweyn ku yaal ayaan wadna ogtiin maalmihii la soo dhaafay wadankaas madaxweynahoodii xireen xilka laga xayoobay waana la xiray sabab musuqu sameeyaa leeyahay iyo ku takrifal awoodoodu sameeyaa labadaas arrimood ugu haysta faham marka arrinkan aad u faham maanta maxaan ka hadlaynaa dhaqaalaha in uu ka jiro farqi inuu ka jiro iyo ummaddu kala sarreyso xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda oo qole iskaga ciyaarto labadaas arrimood aan lagu haystaa madaxweynaha wadanka Kooriyada Koonfureed xabsi u galay kullay maxkamad ayuu sugayaan qaybta koowaad marka gabagabadeen ku soo dhacay buugga Why Nations Fail wuxuu cadeynayaa in horumarka dalalka uu ku xiran yahay qaab dhismeedka siyaasadeed iyo dhaqaale ku xiran yahay awoodda siyaasadeed ee loo adeegsado awoodda siyaasadeed oo loo adeegsado si cadaalad ah waxa ay abuurtaa barwaaqo halka nidaamyada xadidan ama awoodda oo si cadaalad darro loo adeegsado ay kordhiso saboolnimada iyo farqiga bulshada u dhaxeeya qodobka muhiimka waa in dowladaha doonaya inay horumar gaaraan ayna ku horumaraan nidaamka awood qaybsiga taasoo keeni karta horumar waaro barwaaqo iyo farqi yar oo bulshada dhexdeeda waxaan ku soo gabagabaynaynaa arrinka awoodda barwaaqada iyo saboolnimada waxaa keena mar kasta awoodda horta asal ah
awooddu waxay xadidahay caddaysaa waxaa loo yaqaan siyaasadda iyo dhaqaalaha mar haddii awood cadaalad ku dhisan tahay waxaa la aadayaa barwaaqaa jirta mar haddii awoodda ay ku dhisan tahay cadaalad darrana waxaa la aadayaa saboolnimo iyo faqri ama farqi bulshada u dhexeeyo bulshadu inay kala hooseyso ama in qaarkood sabool ahaadee qaar gaajo iska haystay marka halkaasaan kusoo koobaynaa qaybta hore ee muuqaalkan uga hadlayno awoodda barwaaqada iyo saboolnimada ama faqriga waxa loo yaqaan asxaabay waxaan usoo dhahnay qaybta labaad ee muuqaalkeena ama qaybta labaad ee barnaamijkeena hore waxaan usoo sheegay waxaan ka hadlaynaa oo barnaamijka qaybta hore uga hadlaynaa si aan isugu xirno buuggan loo yaqaan why nations fail wuxuu ka hadlaa waxa loo yaqaan why nations fail the origin of power prosperity and poverty uu ka hadlaa power waa soo fahanay prosperity and barwaaqo waa soo fahanay poverty waa soo fahanay poverty waxaa ku lamaansan waxa loo yaqaan farqi inequality waxa loo yaqaan macnaha farqi cadaalad darraa jirta macnaha ummadda u dhexayso ummaddii ayaa kala sarreynaa jirta ayaan uga soo hadlay cutubka 13 ayaan ku soo qaadan barnaamijkan cutubka 13 muxuu muhiim u yahay muxuu yahay horta cutubkan buuggu waa dhowr iyo 10 cutub waa maxaa cutubkan u soo xushay aniga ayaa idin sheegi doona cutubka 13 ee buugga why nations fail oo ciwaankiisu yahay why nations fail today maxay dowladuhu u fail garoobaan ama maxay quruumuhu ama qaramadu u guuldaraystaan maanta nimankan wax badan ay ka soo hadlaan qarniyo iyo ummado iyo waxyaabo kala duwan ay ka soo hadlaan laakiin hadda maantadan maxaa keenay maxay u guuldaraystaan wuxuu cutubkan si faahfaahsan uga hadlayaa sababaha dowladaha ama qaramada qaarkood weli u guuldaraystaan inay barwaaqo gaaraan weli ayagoo history badan iyo xaaladaha soo marna ayagoo maxay weli u guuldaraystaan inkastay jiraan ayadoo xaaladaas jirto inkastay jiraan ama inkastay jirto fursado ay horumar ku gaari karaan ay horumar ku samayn karaan ummadahan maxay u guuldaraystaan ayadoo jirto fursado ama fursad ay horumar ku gaari karaan waa kuwan qodobo muhiim ah oo aan ka soo dheeganay cutubkaas cutubka buugga ee 13 ayaan ka soo qaaday sababta dowladaha ama quruumuhu maanta u fashilmaan cutubka 13 wuxuu diiradda saarayaa sida nidaamyada awood maroorsiga ama nidaamyada awoodda iska qaato ku dhisan ee siyaasadeed iyo dhaqaale ay maanta u sababaan guuldarrooyin quruumo badan qaramo badan ama ummado badan guuldarrooyinkood ayay sababaan waxaa la xusay in waddamada guuldarraysta ay ku fashilmaan inay abuuraan nidaamyo awood qaybsi nidaamyo bulshadu ay leedahay nidaamyo ummaddu ay leedahay inay abuuraan ay ku guuldaraystaan oo u ogolaan kara nidaamka bulshada inteeda badan inay ka qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada looma ogolo inay ka qayb qaataan horumarinta inay dhaqaalaha inay ganacsiyo abuurtaan inay wax soo saar samaystaan inay hal abuur la yimaadaan looma ogola marna siyaasadda inay ka qayb galaan looma ogola siyaasadda inay ka qayb galaan looma ogola inay siyaasadda qayb ka noqdaan looma ogola labadaas arrimoodna waa keentay hagaan qodobada guuldarrada keena marka qodobada guuldarrada maxaa keeni kara kow qodobada guuldarrada keena maxay yihiin nidaamyo xadidan extractive institutions keena nidaamyada xadidan waxa ay ku salaysan yihiin koox yar oo awoodda ama dowladnimada gacanta ku haysata iyagoo isticmaalaya awooddii qaranka si ay u xoojiyaan si ay u samaystaan danahooda gaarka qarankii dhammaay ayay waxay ku samaysanayaan dan ay leeyihiin taasaa keenaysa kow waxa ay abuuraan cadaalad darro saboolnimo iyo horumar la'aan ay keenaan ummadda uma cadaalad falayaan sababtoo cadaalad haddayba timaadaba eegaa meesha joogin saboolnimadana cadaalad darradaa keenta sababtoo ah ummadda uma ogolo dhaqaale uma ogolo siyaasadna uma ogolo horumar la'aanna waa jiray marka waa iska caddaaba qodobka labaad kala sarreynta bulshada inequality waxa loo yaqaan ummaddiya kala sarreysaba kala sarreynta dhaqaale iyo bulsho waxa ay sababtaa in dadka saboolka ah ay ka maqnaadaan fursad markay soo baxda dad sabool looma ogolo ganacsiyada weyn iyo dadka hantiilayaasha
وسيده كل يبقى أقولنا صوم وضن كان سيده كجرتو ضدك وحيست ضدك قديو أيا قددا عشا كسي درسو معنا مركا فوسدا ضدك سوالك لما أقولها halka dadka hodanka ah ee ka sii faa'iideystaan nidaamka jiro maadaama nidaam cadaalad darro ku dhisan uu yahay markasta dadka jeebooyinka ayuu soo dhaweystaa sababtoo dadku haystaahu waa ka qatar badan sabab marka ayagu sii quudaya ayaguna soo jeediya macna marka dadka jeebooyinayaasha qodobka saddexaad xanibaadda hal abuurka nidaamyada xadidan ayaa cuuriyaamiya hal abuurnimada iyo tartanka iyagoo diiradda saaraya ilaalinta danaha kooxaha awoodda haysta kooxda awoodda haysatay xooga saaran asxaabay macal asaf ma jecli waddankeena inaan tusaale usoo qaato laakiin tusaale uu fiican hal abuurnimada qofku hal abuurnimo iyo tartan looma ogolo waddankeena lama ogolo bannaanka la keeni maa laakiin lama ogolo marka sababtoo ah tartan ma jiro waa ognaha tartan maba jiraba sidiisa tartan hadduu jiro xitaa dad hoose ama dad aan maanta soo geli karin meelaha fursadaha waaweyn ayaa soo geli lahaa haddii tartan jiro marka xanibaadda hal abuurka waa noocaas tusaalooyinka waqtigan la joogo tusaalooyinka soo qaadan marka Zimbabwe soo qaadan Zimbabwe horta waa waddan imtixaanan oo balaayo ku dhacday inkaara ku dhacay كل سيد أنا أقوم بوسك إنكارين إنك سيد دولة كجرت أو وطن حاجة دجناشان هي أمني أمرين ونسك عراق عينته هذانا سكا إنكاره كل عاد قاعد جو امتحانه كل عاد عتب كحو تصال أهم أسوقاتي زيمبابوي ونظام كحديد وكقول درستي إنه برشلو أبو رب رواقه إنك استو وطنكو ليها قيرات دبيعة أو بدن وليب زيمبابوي وطن قيرات فربضان كل يوم كوحي أي سجارة ugu takrifo shaqeeraadka waddanka ayagu unba iska rarto taasoo sababtay burbur dhaqaale sidoo kale wuxuu soo qaadanaya Zimbabwe hore uga hadalno waa waddan faqri ah laakiin kheyraad dabiici ah haysta kheyraadkaas dabiiciga waa la soo saaray waa la isticmaalaa laakiin yaa isticmaalo qolada awoodda haysato iyo xukunka ayaa iska isticmaasho Mexico ayuu tusaale labaad u soo qaaday Mexico waddankan ila waa waddan asigan inkaar ku dhacday waqooyiga Ameerika ku yaala waa waddan weyn shidaal soo saaro kheyraad dabiici ah asigan haysta sidoo kale fara badan laakiin waxa soo dhan dadku waa gaajooyin si lamida Mexico waxay la kulantay saboolnimo baahsan oo ka dhalatay nidaam aan ogolayn fursad wadaag nidaam ka jira Mexico sidoo kale waa nidaam bulshada wax u ogolayn marka sidaas keentay sidoo kale Mexico inkastoo aan jeclaan lahaa inaan mar kale ka hadlo Mexico Mareykanka iyo xuduud weyn xuduud dheer la wadaagtay aad u dheer inkastoo xuduudka Canada uu ka dheer yahay haddana waxaa jira gobollo xuduudka ku yaalo oo qaybta Mareykanka ay tahay barwaaqo qaybta Mexicana gaajo ay marka haddaan fursad u helno waa soo qaadan doonaa xiriirka farqiga iyo saboolnimada farqi waa ka soo hadalnay bulshada inay kala sarreyso macna ama kala qaybsantaa macna oo qaybna meel sare joogto qaybna meel hoose joogto iyo saboolnimada cutubku wuxuu cadeeyay in farqiga dhaqaale uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee saboolnimada sii adkeeya marka dadku kala sarreeyaan ama dadku kala fadilan yihiin waa saboolnimada sii adkaata kuwa gaajada haysano gaajada waa ku sii fogaataa sababtoo markasto fursad kasto soo muuqata qoladan loo la naasnuujiha ayaa ku yaacayso ma dhargayaal leeyahay marka ma dhargayaal fursad kasta ayaga u taagan marka dadkan kuwan kale oo gaajadu hayso maadaama ay fursad ay heli karinba oo qoladan ay soo dhaafayn gaajadoodu bay sii daa'imaan halkaas gaajo ku sii dilay farqigu wuxuu yareeyaa ka qaybgalka bulshooyinka nugul dadka hoos masaakiinta ayuu u diidaa inay ka soo qayb galaan maxaa la yiraahdaa tartanka ama fursadaha fursadoo kale iyadoo dadka awoodda leh ay sii xoojinayaan xaaladaas dadka awoodda leh ama dadka hantida haysta ama dadka xoogga leh way sii adkeeyaan wadamo badan oo sabool ah waxa ay il daran yihiin nidaamyo aan u ogoleyn dadweynaha inay ka faa'iideystaan kheyraadka si loo yareeyo saboolnimada waa ognahay wadamadaas afrikaanta isaga badi haddaado marka saboolnimada iyo awoodda siyaasadeed marka maxaa ka dhexeeya saboolnimo iyo awood siyaasadeed maxaa ka dhexeeya
saboolnimadu waxa inta badan ka dhalataa nidaam siyaasadeed oo aan sinaan taageerin macnaa sinaani isaga jira nidaam siyaasadeed oo aan sinaani ka jirin nidaamyada awood urursiga ama awooddu ay qola iska haysato waxa ay kordhiyaan kala sarreynta horta kow taasoo keenaysa in dadka badankiis ay ku sii nagaadaan saboolnimada wadamada noocaana marka qola iska haysato qoladaas haysato si ay xukunka ugu badbaadaan qolooyinka qola nacamleeyaal soo aruursa nacamleeyaashaas ay dadka isaga aadiyaan wixii dhaqaalaa iyo wixii maxaa la yidhaha sandaruura iyo wixii bakshiisha qoladaas siiyaan qoladaas marka waxaa waaye ummadaas ayay ku hor go-anta fursadaha soo baxo oo qolooyinkan soo dhaafo xukunka iska haysan kuwaasaa la siiya marka waa garaado fariyo wa hagaag halka guusha lagu gaaro marka sidee guusha lagu gaaraa guusha sidee lagu gaaraa dalalka barwaaqada gaari waxa ay ku guuleysteen inay hirgeliyaan ay ku guuleysteen nidaamyo waxay ku guuleysteen bulshadu ay awoodda leedahay ama bulshadu ay qayb ku leedahay siyaasadda tusaale ahaan botswana waa waddan afrika ku yaallo haddaanan qaldanayna wuxuu ku yaallaa afrikada koonfureed ama inuu yahay ayaan jeclaa ama galbeedka qaybta koonfurta xigto botswana waa tusaalaha waddan afrikaan ah oo guuleystay sababtoo ah nidaamkiisa awoodeed ee shicibka ee siyaasadeed iyo dhaqaala keena macnaa nidaamka oo shicibku ay soo doortaan ee shicibka awoodda leeyihiin ama nidaamka loo yaqaano awood qaybinta macnaa awood qaybinta nidaamka loo yaqaano ee siyaasadeed iyo dhaqaale ku gaareen sidoo kale South Korea ama koonfurta Korea ayaa tusaale kale loo soo qaato waa tusaale wanaagsan waa macnaa tusaalooyin wanaagsan iyadoo bal la barbar dhigaya South Korea markasta North Korea ama waqooyiga Korea koonfurta Korea waxa ay abuurtay nidaam awood qaybsi ama awood qaybin oo dhiirigeliya hal abuurnimada iyo fursadaha ganacsiga oo dhiirigeliya marka halka qaabkaas lagu gaari karaa in awoodda dawladnimadu ay ahaato awood bulshadu ay leedahay oo bulshadu ay awood siiso dad si dadkaas ay waqti u shaqeeyaan dabadeed haddana waqti marka la gaaro qola kale soo doorto sidaas lagu shaqeeyo waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena ama gabagabadii muuqaalkeena soo gaarnay cutubka 13 wuxuu soo bandhigayaa in guusha dawladaha maanta ay ku xiran tahay awood qaybinta ama awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale ku xiran bulshadu ama ummaddu inay lahaato codka ama ogolaanshaha dadka naqanaya dawladda ayay ku xiran tahay marka qaab siyaasadeed marka haddii sidaas nidaamka siyaasadeed lagu yimaado oo nidaamka siyaasadeed uu cadaalad ahay nidaamka dhaqaalena cadaalad noqon ama fursadaha dhaqaalena cadaalad noqon saboolnimada iyo farqiga dhaqaale waxa ay ka dhashaan nidaamka xadidan ka dhashaan nidaamka loo yaqaano extractive institutionska ayay ka yimaadaan halka horumarka waara lagu gaaraa nidaamyo awood qaybsi ama awood qaybin ayaa lagu gaaraa quruumaha doonayo inay saboolnimada ka baxaan waa inay diiradda saaraan saddexdan arrimood waa inay diiradda saaraan kow hirgelinta nidaamyo cadaalad ku dhisan waa inay sameeyaan labo yaraynta farqiga bulsho iyo dhaqaale ummaddu inay lahaato dabaqada sare iyo dabaqada hoose waa inay ka baxaan oo la helaa dabaqada sare waa dhici kartaa sababtoo ummaddu qofku xoolaheeda iyada iska leh hanti badan waa yeelan kartaa laakiin dabaqad dhexe oo xooggan waa jirta dabaqad dhexe oo xooggan dadka marka saboolka waa inay yaraadaan dabaqada dhexe waa inay badataa ummadda dabaqada sare yaraataa dabaqada hoosena ay yaraataa markaas nolol waa jirto qodobka saddex muxuu yahay dhiirigelinta hal abuurka iyo tartan furan ummadda waa in tartan furan loo ogolaadaa waa ogna afrika waxa ka jiro khaasatan east africa gaar ahaan waa ognahay waanu jiraa cutubkani wuxuu si qoto dheer u tilmaamayaa in sababaha quruumaha ay maanta u fashilmaan ay salka ku hayaan nidaamka xadidan ee siyaasadeed iyo dhaqaale ayuu salka ku hayaan ee ka hortagaya horumarka bulsho oo dhan nidaamka siyaasadeed hadduu cadaalad darro yahay nidaamka dhaqaale uu sidoo kale yahay mac salaama arrinku waa isku dhammaado markaas ummadaas saboolnimo iyo gaajo iyo farqi ayaa imaanaya marka cutubkeena 13aad ee book Why Nations Fail halkaas ayaan kusoo gunaanadayna cutubka magaciisa waxaa loo yaqaanaa Why Nations Fail Today ayaa loo yaqaanaa maxay quruumuhu maanta u guuldareystaan ama maanta maxay u fashilmaan ayaa loo yaqaanaa
waxaan rabaa inaad ku soo xiro oo soo koobo waxaan ka hadlin maantay power prosperity and poverty aan ka hadlin poverty waxaa ku lamaan oo qodobka saddexaad ah ama saddexda qodob ka mid ah inequality ku lamaan kala sarreyn ayaa ku lamaan marka maanta waxaan ka hadlaynay awoodda iyo barwaaqada iyo fakhriga ama saboolnimadan ka hadlay ummaddu haddii awooddeedu hadday fiican tahay awooddeedu ku dhisan siyaasadda iyo dhaqaalaha hadday fiican tahay cadaaladna ay tahay ummaddaas waxay haystaa power and prosperity haystaa power and prosperity haystaa waa ummad awood leh barwaaqana haysto haddii ummaddu awooddeeda siyaasadeed iyo dhaqaale cadaalad darra ka jirto ummaddaas poverty ayay haysataa waa ummad awood leh haddana maxaa la yidhahdaa fakri ah fakriga waxaa ku lamaan hore usoo sheegan waxa loo yaqaan inequality farqi bulshada u dhexeeyo ama kala sarreyna ku lamaan hagaag waxaa jirta ummad kaloo siyaasadeeda iyo dhaqaalaheedu cadaalad darra ka jirto awooddeeda marka hore cadaalad darra ka jirtaa awooddeeda dowladnimo cadaalad darra ka jirtaa ummaddaas waa poverty waa marka inequalityguna waaba iska dhiirigashantaaba sideedu iskaga dhiirigashantaa ummaddaas yaa waay marka tusaale u wanaagsan tusaalaha ummaddaas commentiyada iigu reeba weliba commentiga muuqaalka iigu reeba asxaabe halkaas ayaan muuqaalkan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan waa qaybta labaad ee buuggeena Why Nations Fail ama maxay quruumo u guuldareystaan asxaabe muuqaalka insha allah faafiya wixii commenti wixii talaan halkaan noogu reebi kartaan asxaabta qaar muuqaalka hadduu ku dheeraayo insha allah isoo canaanan doono laakiin muuqaalka hadduu sidan ku wanaagsan yahay oo sharxaadan ay wanaagsan tahana waxaa dhahdeen asxaabay muuqaalka ku dadaal inaa yareyso iska dhaha laakiin markasta xogta inaan idiin soo gudbiyo oo xogta dhammaystiran idiin soo gudbiyo aan jecel marka insha allahu tacaala intaan barnaamij noociisa aan kulmi doono sidaas iyo nabaadiina allah